qof walba muraad uu leeyahay muraadkiisa ilaahay inuu ka dalbado inuu u sahlo inaan niyadda isku furno dadka iyo qalbiyadooda isku duma isku soo dhawaad ilaahay inuu naga yeelo insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشنا قيمة بدن إذا الكيمبا ملل بوا جوكتان يسوى البواتينو داوانيسان وحان إذا لنا هاي دونيدان دعلا دا ديوغ دا سنيدان كينا وغارو كسو دورخ إذا الكين دريم بويس ميديا أو نقد داودا مقالة دوخينا يدباقينا بديقة هدالينا هداهنا إيهاو دولي ميلكالي وحوال بود دانيسو دريم بويس كداو كسو دوادا مقال عصب محن برنا واي كوبيسه كوبي ما جرته محن كوبينا اريغا ما شاء الله والله يعني اريغا انا ودايا مقعلنا يا مقعلنا ما اوكي اوكي كسو dhawaada maanta iyo muuqaal cusub muuqaalka maanta waxaan kaga hadlaynaa maanta waxay ku beegan tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan Ramadaan fadaa'isha bisha barakeysan Ramadaan iyo markaa muslimiinta meel walba ay joogaan waxa looga baahan yahay iyo ka faa'iideysigeeda iyo dareenkeena ku aadan anaga danahay bahda Dream Boys Media bilashada bisha barakeysan Ramadaan ay muuqaalkan kaga hadlaynaa saaxiibkayga Cali Daacad ayaa ila fadhiya oo muuqaalka maanta igala soo muuqanaya isagaana jecelahay inta muuqaalkeena gudagelin oo barnaamijkeena maanta ka hadlayno aan bilaabin inaan soo dhaweeyo mikrofoonkan ku soo dhaweeyo soo dhaw Ramadaan Kariim starka cadde horta ma sha Allah sida barnaamijka u dahfurtay ma sha Allah aad iyo aad ugu farxay mis dhahay adan ka masaare ya kale laab aye wax walba macquul ما شاء الله ما سوون واي dadka waxay isdhaayeen daawadayaasheena mar badan soo fadhiisano mashaakil laga sheekayna iyo challenge may soo wadaan iyo ma hortaasid maanta way ka duwan tahay maanta waxa way fiidiyoyada aan soo dhigayni fiidiyoyada qaarta maanta way ka duwan tahay wayna ka xamaasad badan tahay waay runtii horta waa idin salaamay dhamaantiina salaan saxan sax udgoon badan ayaan hawada idin soo mariyay marka daawadayaasheena qiimaha leh meel walba joogtaan maanta horta ramadaanka waxa way koow waay aan dhalaa curtay dhan sama waxa bil barakeysan bil aati loo amaanay oo hadii aan hortaan sanad walba hal mar ay inoo imaada oo horta inaan ka faa'iideysana waayo dadaal dheeraad naga baahan yahay juhdi iyo maanta in oo maxoga aan xirano ayaa naga baahan yahay waayo gaari doona mashay karna soomaha soon kale hada soonkii hore dadkan la soomay maanta ma joogan dunida way faaruqeen adigana meel lagu soo joogo ma ogid marka dadkan badankooda waxay dhahaan soonka markii la gaaro ay waxay dhahaan waxa la yaaseen haye aan iscafino bil Ramadaan waay ya saasidan bil Ramadaan markay ka dhimantahay ayaa bil Ramadaan kaligeed in la iscafiyo ma walaalkaaga hadad qalad ka gasho inaad afiska dalbato aad iyo aad wanaagsan tahay waayo bir Ramadaan la hadu imaado afi ina dhahdo inta kalena hadi bisha dhamaatane waxaaga meesha aga bilaawto waxa waayeen aad iyo aad qalad weyn waayo horta mana wanaagsana marka Soomaali weyn waxaan idin ka dardaarmaa hadalkayga in aan ka sii dheeraado marawo gabagabadeeda waxaan idin dhahaa meel walba aad joogtaan iyo si walba aad ina daawanaysaan inaan iscafino waa wax aad iyo aad wanaagsan waayo inaan iscafino oo maanta qofka walaalkaaga hadaad qalad ka gashay saamax afide hadii isaga qalad ka galay sidoo kale inuu afiska dalbada ayaa aad iyo aad wanaagsan waayo dunidaanaytii naftaanayt amaanay kugu tahay meel lagu soo joogo maanta ma ogid marka aan isafino kun iyo kow jeer aan isafino waayo bir Ramadaan waayo bir Ramadaan kaligeed loo afis in isdhaho ma wanaagsana laakiin ina oo maanta aniga waxaan dhahaa intii oo uqdad ii qabto oo maanta ama colaytan ila qabto waxaan jeclaan lahaa inay cafiso anigan maanta wixii ka bilaawdo waliga qof uqdad horta uma qaadin ani wallahi dabeecadeyda boy qof hadii maanta anis dagaalnita waqti xaadirkaas ilaawa bani waa iska cafiya wallahi marka aan isafino hadaa wax aan qalad aan ka galay ama qalad aad iga sheeganayso ama uqdad aad qabto waxaan ku dhahaa i cafi anigana maanta hagaygan cafiseed ka tahay waa ku cafiyay wax uqdad aan ku qabo ma jirto caloosheeda saafi ku tahay qalbigayga nadiif saliim ayuu ku yahay marka Soomaali weyn dhamaantiinaba aan isafino one love Cali aad u mahadsan tahay waa sida walaalkeen Cali uu tilmaamay dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan
waxaan leeyahay halis cafiyo. cafinta kaliya bisha ramadaan ma bilaabanayso, maalmaha kalena ama markaa bilaha kalena aaday u wanaagsan tahay. waxaase wanaagsanba qofka markaad khalad aad ka gasho oo aad markaa ogtahay khaladkaaga inaad markaasi samaysay, khaladkaagana uu jiro, waxaa ku wanaagsan marka in markaa khaladka aad gashaba inaad khaladkaaga markaad ogaato aad ka dawa dalbato inaad cafis aad markaasi ka dalbato isaga ama qofka aad khaladka ku samaysay. marka waxaan dhihi lahaa soomaaliyey, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan, waxaan leeyahay haleys cafiyo, cafiska lagu dadaalo. cafiska aad u wanaagsan yahay. waagii saxaabada waxaa dhacday taariikh markaasi aan markaasi maqlay, dhegahayga markaasi ku bateen, aan markaasi mar walba xasuusan doonaan ilaaweynin. nabigu wuxuu dhahay albaabkan waxaa kasoo galaya nin ahlu janaa. nin ahlu janaa kasoo galay, ninkii wuu soo galay. mar labaad wuxuu dhahay nin ahlu janaa kasoo galay, isla ninkii waay. markii saddexaad waxaa lahay nin ahlu janaa kasoo galay, waa isla qofkii. 3 mar halkii nin baa meesha kasoo galay. meesha waxaa joogay saaxiibada qaar ka mid ah, waa qof ka mid ah waa uu maseeray. wuxuu dhahay nin hibil mi ahaa, qof yahow nabiga ahaa saasuu dhahay, adigana arrintan see ku gaartay, maxaa samaysaa ii sheegba. ninkii qofkii saas dhahay oo nabiga uu markaasi ku tilmaamay in ahlu janna uu ku tilmaamay, ayuu markaasi u martiyey. gurigiisuu tegey, marti uu noqday. way dadaali jireen. marka leelkii la soo kacay, ninkan salaatuleel ma dukanaynin. salaatuleel asoo dukanaynin, aad salaatuleel ma dukatide sidan waxaa ku samaysaa. wuxuu dhahay aniga haweenkii markaan seexanayo uqdad la'aan salaadana markii oo waajibka uu dugtane wuu bixi jiray sunu ma dukan jirin. marka wuxuu dhahay aniga habeenkii markaan seexanayo qof aan uqdad u qabo ma jirin, uqdad la'aanan seexanaa, qalbigeyga saliima aa seexanaa, sidaasaana ku soo kacaa. saasna waa arrin aad u wanaagsan. ayaan seexdaa habeenkii waana kusoo toosaa, qalbigeyga anuu nadiif u yahay, dadka markiina uqdad aanan u qabin seexdaa. intaasuu ku gaari wallahi, intaasuu ku gaari. marka waa arrin aad u muhiim ah waaye. marka aad iyo aad marka ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan leeyahay soonkan ilaahay ayaa markaas nasiib noo yeelay inaan markaas haleelno aan soo gaarno. qofkii nasiib leh baa markaas soo haleelayo soo gaarayo. anagana maadaama aan soo gaarnay khayrkeeda, fadaa'isheeda iyo camaasheeda suuban inaan ku dadaalno, adkaaraadkii iyo qur-aankii akhristiisa inaan badino. qof walba muslim ah oo i daawanayo halkan markaasi ku xiran, waxaan leeyahay soonka ku dadaal. haddaadan soomi jirin soonka markaasi ku dadaal. soonka fadaa'ishiisa ma la soo koobi karo. maasha allah. awaluhu raxma wa awsaduhu makfira wa aakhiruhu cidqu min annaar. qaybta ugu dambeysa naarta la iska xoreynaa. dhammaan saddexda qeybba dadkii haleela ilaahay naga yeelo. aan ducaysana insha allah. bishan barakeysan ramadaan, waalidiinta hadday kuu nool yihiin u duceey, hadday dhinteenna u duceey, mar walba u duceey. maasha allah siday noo soo barbaariyeen. maasha allah siday noo soo barbaariyeen, heerkan ina soo gaarsiiyeen. ilaahayna ugu duceyno ayagana inuu karaamo iyo sharaf uu ciseeyay. waalidaa soo gaarsiiyey. wax walba markino mustawaha aad maanta aad taagan tahay, waalidaa ka dambeeyey. si fiican waalidaa maanta markino haddaa maanta qof wanaagsan tahay, ya wanaagaasayta waalid le ka keentay. haddii maanta waalidkaaga markino tarbiyo wanaagsan, dabeecad wanaagsan intaba uusan ku siin lahayn, dad maanta ma hortagi lahayn mayno, ma ku jeclaan lahayn. marka waalidka in badan inaan xasuusnaano, aan u ducayno, siibo bishaan ramadaan inaan ku faa'iidaysano, duca badan aan u ducayno. anagoo maanta xasuusnaanayno, mar walba inaan xasuusnaataa waalidka horta, hadduu kula joogo iyo hadduu dhintaybo. hadduu maanta waalidkaaga kula joogin uu dhintayna inaa u ducayso muhiim waaye. qur'aan iyo markino ama inaa wax u qashid ama qur'aan wax maanta inaad wax u bixisid, haddaa masaakiinta quudisid, ducaa wax u tarayso, mar walba inaa u ducayso. waxaa la dhahay waalidka hadduu dhinto aa u ducayso, darajada koraa lagu sii qaadaa. mar walba darajada hadba markino ducadaada aa u ducayso, darajada waa lagu sii qaadaa. ilaaha wuxuu dhahaa aniga adduunka markaan joogay darajada maba lahayn be, heerkan ilaa daraja maba soo shaqaysanin be, seen ku gaari u dhahaa. waladuka saalix yadcuu lahu. allah wiilkaaga dunida ku joogo oo wanaagsan aa kusoo duceyno. sidaa awgeed anaga darajadaha kor saas ugu qaadnay. maasha allah. aan ka faa'iidaysano, aan u duceyno waalidiinteena insha allah. intaas ugu baxa. cali waa mahadsan tahay. markaasaan hore idinku sheegnay maanta waa maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan. wax badan waa soo sheegnay, waana iyo weliba wixii laysku sheegay baraarujina waa idin soo sheegnay. marka daawadayaasheena waxaan idin leenahay ramadaan kariim. waxa waaye muuqaalkan wax kale uguma talgelin, waxaan usoo fariisanay waxa waaye ramadaankan
khayrkiisa inaan ku dadaalno inaan idinla wadaagno haa cafis haa maasha allah cali waa dalabkiisa waa idin soo gudbiyey waxaan rajaynaya inaad cafiseen aniga ahaana dadka i daawanayo halkan igu xiran oo mar walba muuqaalkayga daawanayo waxaan leeyahay halees cafiyo halees cafiyo halees cafiyo cafisku waa shay qaali ah qof walbo wax iga tabanayo hadal khaldan hadal xumaana qalbigiisa dhaawacaya qalbigiisa jebinaya niyadiisa xumeynaya haddaan ku dhahay oo halkan iga daawanayo saaxiib walaal aniga inta badan dad waa la sheekaystaa laakiinse hadday jiraan dad uqdad ii qaaday qalbigooda wax yar ii galay in markaasi qalbigooda xumaanta iga saaraan iyo cafiyaan bisha ramadaan awgeeda cafis inaan ka dalbado anigana waa cafiyey wax uma qabo wax hadda aniga laabteeda xumaan ku jirto ma jiraan mar walba caloosheeda way furan tahay saafi waaye saliim waaye marka waxaan dhihi lahaa in lay cafiyo inta meesha igu xiran yaa soonka dartiisa ramadaan awgiis inaan lays cafiyo cafiska waa shay qaali ah waxaa waaye waxaas wanaagsanba haddii ramadaan keliga ay markaas cafis u timaado in markaas lagu ekayninba ramadaan keliya lagu ekaynin bilaha kaleba markii qalad aa gasho qofka qalad aa ka gasho aad ogtahay qaladkaaga uu jiro aakhirsan tahay inaad qofka qaladkaaga aa ka dalbataa wanaagsan cafis inaad ka dalbato walaalo si wax i noqdeen u sababaa shaydhaanaasaan dartiisa ku dhacday walaalo iyo cafi inaad dhahdo laakiinse ramadaana la gaari ramadaan le cafis aan dalbana waa laga wanaagsan yahay mar walba waxa waaye cafisku waa furan yahay qofka waxaa waaye khalad markaa gagasho aa ogaatid khaladkaaga inuu jiro qofkana waxaa waaye khaladkiisa waxaa wanaagsan bin aadan horta khalad waa galaa laakiinse waxaa khayr badan qofka khaladkiisa qirta ogaada haddana khaladka ka tawba keena oo qofka yacni raaligelin ka dalbada marka waxaan dhihi lahaa iyo cafiya calooshiina ii fura wixii samaana samaanba waaye laakiin wixii humaana calooshiina iigu jirta inaad iga saartaan laabtii inaad ii furtaan ramadaanka awgiisa khayr badan iyo caafimaad rajayna acmaasha barakaysan ramadaan aan ku dadaalna insha allah waxaa waaye hadda acmaal fara badan aa bishan soo aroortay in la qabto sida quraan awal waa la akhrin jiray yaa ma la akhrin jiray ma la dhahayo waa la akhrin jiray laakiin hadda in lasii laba jibaaro shahru ramadaan waxaa waaye shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan waaye qur-aankaa la soo dejiyey marka maadaama bishii qur-aanka ay tahay qur-aanka inaan weyneyno aan sharafno qofkii maalintii juska gaari kara ama jaladka gaari kara tahay inuu jaladkiisa u dhammaysto juskiisa u akhristo adkaaraadka saas oo kale tasbiixdii laa ilaaha illallah adkaaraadka inaan markaasi aan akhrisano waalidiinta inaan u ducayno gacmaha kor aan u taagano inta bisha markaysan ramadaan aan ku jirno inaan ilaahay aan markaas u gacmo hoorsano qof walba muraaduu leeyahay muraadkiisa ilaahay inuu ka dalbado inuu u sahlo inaan niyadda isku furno dadka iyo qalbiyadooda isku duma isku soo dhawaad ilaahay inuu naga yeelo insha allah muuqaalkana sidaasa u sameynay kuma sii dheeraanay insha allah haddii muuqaalkan aad ka hesheen oo si waana u daawateen ood fahanteen waxyaabaan kaga hadlaynay waxaan idin leenahay 1 jeer waa kumaasan tihiin haddii janaalkan aad ku cusub tahay waxaa xusid mudan inaan kaa codsanayno sabskraib inaad noo saarto oo waxyaabaha markaasi halkan aan markaasi soo gaarnay iminka sidaan nahay dartiina ayaan markaasi ku soo gaarnay haddana maadaama booskan aad na soo gaarsiiseen inaadan caajisin halkeenii aad kasii wadaan dadaalka insha allah waana garab qabateen allah idinka abaalmariyo haddana waxaa waaye sidiini noogu sii socda insha allah abaalmarinta rabbi ayaad xaggiisa aad ka leedihiin insha allah annagana mar walba waan idinkaga mahad celinaynaa sidaad noo sharfaysaan aad noogu xiran tihiin aad nala jaan qaadaysaan muuqaalada inaad u daawanaysaan iyo sidaad u sheergaraynaysaanba kommentiyada waa u jeedaa maasha allah oo reaction fara badan oo yani oo muuqaalada laga soo bixinayo jawaab fiican laga soo bixinayo waan idinkaga mahad celinayaa muuqaalkan xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa ramadaan kariim cafis insha allah anis cafino